idinka kaliya ma aha jaaliyada kale waa arkay oo Soomaaliya oo aan arkay iyagana dadaalkooda aad u badan yahay oo madaxdooda ay aad u amaanaan waxa kamid ah jaaliyada Soomaaliyeed oo degan Kenya iyo South Sudan iyo Suudaanta naftigeeda xaqiiqatan meelaha Soomaaliyeed ku badan yihiin anigu madaxdooda arko dadka Soomaaliyeed aad iyo aad loo amaana laakiin marmar waxa la isweydiin karaa haddii dibadaha asaas ku nahay maxaa gudiga ku dhacay waxa weeye gudihii naftigoodu dadku waa fiican yahay waxa la rabaa hoggaanku inuu dadka toosiyo oo jid wanaagsan tuso hambalyadaas waxaan kaloo oo habeenkaas ugu dambeysay halkan aan ka wada hadalnay dardaaran annagu waa ila dardaaranteen annagu waa idila dardaarnay aniga dardaaranka aan idila dardaarmay waxay ahayd dardaaran aan ka helay madaxda iyo qeybaha kala duwan bulshada markaan weydiiyay aan iri maxaa loo baahan yahay inaan ka hadlo oo aan dadka aan rabaa inaan la wadaago waxay ugu yiraahdeen waxa aad uga hadashaa arrimaha midnimada naga liidata xoogaa waxa nagu dhex jira xoogaa kansar yar cudurro yar nagu dhex jira ilaah naga daaweeyo marka nagu dhiirigeli in midnimada la xoojiyo waxyaalaha qabyaaladda ahna la iska fogeeyo marka waxaan si tusaalooyin annagoo ummad Soomaaliyeed ah wax walba wadaagna dhaqan aado diin luqad aragti wax walba wadaagna iyo deegaanba yaa haddana dadkan waxaan moodaa iyagoo wax badan ka midaysan wax yar oo ay ku kala duwan yihiin inay balbalaarinayaan مثلا waxaan ka soo qaaday marka Afrikaanka hadda anaga Soomaaliya jooga oo gacanta naga siiya arrimaha amniga iyo guud ahaan qaaradda Afrika dalalka ku yaala waxa weeye waa dalal la isku geeyay dad la isku geeyay oo aan waxba wadaagin luqad aan wadaagin dhaqan wadaagin diin wadaagin maxaan ku yiraahdaa caado wadaagin saasay tahay waa naga horeeyaan oo iyaga wax la tarayaba oo waa kaas oo halkan aan joognaa oo South Africa ah oo saa sheegteen 12 noqodood looga hadlo iyo diimo badan maxay tahay sababta marka sababta waxay tahay wadamadaasi muddo dheer iyo dadkooda indoctrination ku wadeen ay hanuuninayeen ayna u sheegayeen waxyaabaha ku kala duwan yihiin iyo waxyaabaha ay ka midaysan yihiin isaga mid yihiin waxyaabaha ku kala duwan yihiin waxay ku qoraan far yar oo la akhrin karin marka ka sheekeynayaan waxay ku sheegaan wax aad u xun saas darteed yaa far yar loogu qoray waxa ay isaga mid yihiin oo aan jirinba far weyn iyo ku qoraan oo maxay tahay waxa ay farta weyn ku qoraan inay is ogolaadaan inay isu baahan yihiin inay wada noolaadaan annaga teena marka wax walba waa iska mid baahidina waa jirtaa in la wada noolaado marka kulli far weyn ku qoran karnaa marka laakiin wuxuu baahan tahay in muddo dheer aan ka hadalno oo qof walba la gelinsiiyo waxa ku kala duwanahay ma jirto tan baahida marka iyaga waxay keeneen bacdama ay noqdeen dawlad baahida ugu horeysa waxay tahay inay yihiin qarankana loo baahan yahay dawlad difaacda inay jirto dawladana waxay ku kala dambaysaa xeer iyo shuruuc iyo dastuurkaas yaa isku haya iyaga marka oo u sheegaya qof walba xuquuqdiisa iyo wuxuu leeyahay iyo baahida isu baahan yihiin inay wada noolaadaan oo haddii ay kala tagaan ay u yihiin halis cudurro abaaro iyo colaado marka annaga marka waxa weeye saas oo kale inaan ka hadalna loo baahan yahay ummadda Soomaaliyeed waxa badan aan wadaagno waxa ugu muhiimsan ee tahay inaan wada noolaano laakiin inteena badan waxaan jecelnahay inaan la noolaano dad intay 100 sano ka hor oo reer hebel isku yiraahdo
qof 200 sano ka hor yaa rabtaa inaad isku identify garayso oo aad la noolaato kii ku ag taagnaa oo aad kaliya u baahnaa la sheekaysto oo la shaahdo waa u baahanta iyagu waxay yiraahdaan marka dadka Afrikaanka ah baahidooda iyo inay wada noolaadaan hadaa aad u beerley tahay waxa u baahan tahay nin xoolleeya oo ka iibiyo caanihii iyo hilibkii waa isu baahantiin marka maxaa yeelay caano kaliya kuma noolaan kartid labadoodu wuxuu baahan yihiin daawo wuxuu baahan yahay qof ka iibiya daawadii xoolaha qof ka iibiya abuurkii qof guriga u dhisa qof macallin ilmihi wax u bara marka inaan fahmnaa loo baahan yahay waxaan intaas fahmi weynaa maxay tahay marka tusaalahaasaan waagaas idin siiyey waxaan idinkula dardaarmay midnimadu inay ka xoog badan tahay wax walba inaad tihiin dad isku maxaan ku raahdaa walaalaha wax walba wadaaga inuusan qabiil idin kala qaybin in aysan gobollo aysan idin kala qaybin inaad isu baahan tihiin magaaladan weli markaad joogtaan oo ajnabi ku tihiin inaad wada noolaataan inay khasab tahay oo wax alla wixii dhaqankii xumaa oo kala qaybinta iyo qabiilka ahaa aad ka saartaan taasaan idinkula dardaarmay idinkuna waxaad igula dardaarantay markaan idin weydiistay taageeradiinna iyo kaalmadiinna waxaad tidhaahdeen ilaahay ha kuu fududeeya hawshaas u socoto adigana waxaan kaa codsanaynaa inaad noqoto qof ummadda u dhexeeya oo aan qabiil aadin haddii aad guulaysato in ummadda ammaanadooda aad u hayso sidii ilaahay kuu ogay aad u hayso waxay igula dardaarateen inaan sharafka Soomaaliya aan ka hormariyo wax walbaba aan ka hormariyo sida hadda aan maqlaayo dardaarankayga waa qaadateen oo sida hadda oo ninkii odayga halkan joogay uu sheegay in meeshaan qabiil uusan ka jirin oo dadka Soomaaliya walaal yihiin waa iga yeesheen anna waa idinka yeelay dowladda aniga ugu sareeyo aan madaxweynaha ugu ahay kuma shaqeeyo qabiil Soomaaliya ay dooratay Soomaaliya ay banaan baxday walaalayaalow sida sharafta lahayd waagaaga soo dhaweystay marna ma iloobi karo waa idinka mahad celinayaa mar kale xaqiiqatan ducadiinni waa kacday laakiin meeshaan u tagay waxay ahayd oo aan islahaa laba arrimood looga baahan yahay meeshaas ugu horeeya koow waxa looga baahan yahay qofkaas inuu yahay qof daacad ah oo maxaan ku yiraahdaa ku hogaamiyo si daacadnimo ah bacdama aad looga hadli jiray musuqmaasuq iyo waxa la mid ah iyo meel ay haraysay khilaafaad oo dowladdii istaagtaba uu khilaafaad ku imaanayay ilaa ay ka baxda meesha labadaas arrimood kaliya moodayay meesha inay u baahan tahay laakiin hawsha intaas waa ka fogtahay hawsha intaas waa ka fogtahay maxaa yeelay muddo dheer yuu dalka burbursanaa qabyaalad waa jirtay waa xaqiiqa musuqmaasuq badan waa jiray waxay keentay marka wax xun iyo wax fiican inay isku qasan yihiin aadan kala garanayn oo structure-kii dowladnimo capacity usan jirin maxaa yeelay qofkii waxaa lagu geenayay meesha qabiil iyo qabyaalad yaa lagu geenayay dhaqankii baa saas ahaa marka looma fiirinayo qofkan shaqada muu qalmaa meerit ma yahay shaqadii aqoonteeda ma leeyahay kartidii ma leeyahay loo fiirin mayn waxaa loo fiirinaya qofkan kula heeb ma yahay hadda qofkaas meeshaasi la geeyey qof u qalma ma aha waxa weeye marka in aan bedelno culture-kii oo koow aan xaqiijino dadka shaqeeya capacity-gooda kadibna ha joogaan meeshoodii laakiin aan ku dul dhisno capacity kale ilaan dad Soomaaliyeed way muddo ka shaqeynayaan meesha meelaha ay ka halaysan yihiin ama ay ka dabacsan yihiin weakness ka jiro inaan xoojino oo aan siino pillars kale oo dhexaadyo kale macnaheedu waxa weeye aan ku soo biirino
dad aqoonteedii khibradeedii leh oo aanan ku iman qabiil markay wax lumaan oo weliba la wada leeyahay dadku waxaa la rabaa isku si inay uga danqadaan waxaa la wada leeyahay dowladnimadu iyo qaranimadu waa wada leenahay runtii muddayna burbursanayd haddaan rabnaan soo celinno waxaa la rabaa qof walbaba inuu qaybtiisa ka qaato uu kaalintiisa ka cayaaro oo uu juhdi geliyo kow waxaa ka ah inaan xoojinno qarannimadeennii oo wiiqantay aad u wiiqantay waxaana wiiqay midnimo la'aan waxaa wiiqay qabyaalad iyo kala qaybsanaan waxaa wiiqay shisheeye oo ka faa'iidaystay dhexdeenna ka faa'iidaystay inaan soo celinno yaa loo baahan yahay quwadeennii dowladnimo inaan soo celinaa loo baahan yahay quwadda dowladnimo waa tan lagu dhiso qarannimada inaan soo celinaa loo baahan yahay baadi goobkeedaan ku jirnaa oo ay ugu horeyso siyaasadda aan ka leenahay amniga oo idinku naftigiinnu haddaa halkan joogtaan iyo kii soomaaliya jooga iyo qof walbaba uu qayb ka ahaado baadi goobkaas aan ugu jirno dowladnimadeenna inaan soo celinno iyadoo xoog leh oo sharaf leh arrimaha amniga wax badan baan ka qabanay waxaan